madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan madax ka socotay hay'adaha qaramada midoobay sida UNHCR iyo sidoo kale WFP FAO iyo sidoo kale WHO kulanka madaxweynaha waxa ku helinayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo qaar ka mid ah golaha xukuumadda sida wasaaradda arrimaha gudaha caafimaadka waxbarashada kalluumaysiga iyo beeraha iyadoo markaasi looga hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee dalka uu marayo amniga iyo sidoo kale taageerada qaramada midoobay ee siiso Jubbaland gaar ahaan mashaariicda horumarinta ee ay ka wadaan deegaanada Jubbaland hay'adaha qaramada midoobay ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ergeyga qaramada midoobay ugu mahadceliyay booqashada uu ku yimaaday magaalada Kismaayo iyo dadaalka saaxiibada beesha caalamka ay ugu jiraan sidii xal rasmi ah loogu heli lahaa caqabadaha ku gadaaman sidii doorasho la wada ogol yahay ay u dhici lahayd dalka Soomaaliya waxa kale oo yeelanay kulan gaar ah safiirka oo aanu kaga wada hadlaynay arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda waxaan isla qaadanay Soomaaliya inay u baahan tahay xal siyaasi inay gaadho waxaan isla qaadanay Soomaaliya in wada hadal lagu dhameeyo waxyaalaha taagtaagan waxaan isla aragnay inay muhiim tahay siyaasiyiintu inay ku heshiiyaan arrinta doorashada dhacaysa ayna soo dhaweynay labada dhinacba shirka dhuusamareeb la isugu tagayo berri inuu noqdo mid midho dhala dadkuna ay ka tashadaan waxaan isla qaadanay inay u baahan tahay in la ixtiraamo heshiiskii 17 Sebtembar uuna yahay xalku in isaga korkiisa lagu shaqeeyo waxaan aad uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo madaxda Soomaalidu ay qaadato hoggaanka ay leedahay waxaan kala hadalay waan maastorka isla aad uga hadalay oo noo ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaado la fuliyo Soomaaliya ayna maanta u baahneen in dib u noqoto Soomaaliya ayna maanta u baahneen dagaal sukeeya loona baahan yahay mas'uuliyiinta Soomaalidu inay gartaan waxa maanta dhinaca kale ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan ayaa madaxweynaha Jubbaland ugu mahadceliyay soo dhaweynta iyo qaabilaadda heerkeedu uu sareeyo ay kala kulmeen Jubbaland isagoo wafdigiisa markaa ku helinaya booqashada ay maanta ay ku yimaadeen magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland James Iswan ayaa sheegay in loo soo dhaweeyay si aad u heer sareeya waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo in dalkan Soomaaliya uu horay markaasi u socdo. Mr. President, I would like to begin by thanking you, President Ahmed Mohamed Islam Madobe, and your team for the warm welcome that we've received here in Kismaayo today. I'm here with colleagues from different parts of the UN family in Somalia, the country director of the World Food Programme, Cesar Arroyo, the representative to Somalia of UNHCR, the UN Refugee Agency, Johan Sifwant, the representative of the World Health Organization, Dr. Mamouna Rahman Malik, and from the UN Food and Agriculture Organization, the Fisheries Coordinator for Somalia. dhanka kale wasaaradaha kala duwan ee Jubbaland ayaa kulamo gaar ah waxay la qaateen hay'adaha qaramada midoobay ee kala ah UNHCR, WFP, FAO iyo sidoo kale hay'adda WHO kuwa oo ay ka wada hadleen mashaariicda horumarineed ee deegaanada Jubbaland ay ka fuliyaan iyo taageerada ay siiyaan waacaha beeraha kalluumaysiga qaxootiga caafimaadka iyo sidoo kale horumarada Maxamed Ibrahim Krama raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Kismaayo.